unit 2 cutubkeena labaad ama jabtarkeena labaad waxaynu ku qaadanaynaa operating system ama OS ka computerka ayaynu ku qaadanaynaa waan introduction overview khulaasada cashirka. In this unit cutubkani the learner bartuhu will learn wuxuu baran doonaa about the concepts fikradaha of operating system OS yada and the fundamental features iyo asaasiyaadka of Microsoft Windows Microsoft Windows mooso inta waxaa sii dheer it will consider wuxuu tixgeli doonaa the file management maamulitaanka faylasha and working with different application iyo ku shaqeynta application kala duwan. Objectives ujeedooyinka ama hadafyada casharka aynu ka leenahay ama cutubkan. At the end of this unit dhamaadka cutubkani the learner should be able wuxuu awoodi doonaa define and describe inuu qeexo cadeeyo operating system waxa uu OS yahay, state inuu sheego the functions shaqooyinka of operating system ee OS yada, demonstrate inuu muujiyo oo qeexo how to navigate sida loo kala sooco Windows yada user iyadoo la isticmaalayo operating system OS yo, manage files and folders files iyo galalka inuu maamulo isagoo la isticmaalayo OS ama operating system, produce inuu soo saaro documentada, manage images sawirada uu maamulo, capture screenshot inuu qaado screenshot yada, and make calculations sameeyo using iyagoo isticmaalaya different application kala duwan iyadoo la isticmaalayo.